بسم الله الرحمن الرحيم waxaan arkaa falceliska inuu iskugu jiro labo mid 10 iyo mid 10 intaba dadka ka falcelinay saddex qolo inay iskugu jiraan oo arkaa qolo ma aragtay hadalkayga si qalada runtii u fasirtay ayaga u dan leh inay dadka hor keenaan qoladaas anigu waxaan u haystaa inay yihiin qolo dawladda aan mucaaradka isku horjeedin u shaqeynaysa iyo qoladii markii hore iga soo horjeedo argagixisada ahayd laakiin dad culimada kamid ah iyo dad Soomaaliyeed badan oo waxa jira hadalkayga qalad u fahmay oo ana maanta sababta aan u cadeeyay hadalkayga qaladka loo fahmay ay ahayd dabcan qofka hadii uu hadal jeediyeen in qalad laga fahmo mas'uuliyadiisa asaa iskale waana taas mas'uuliyadda aan qaatay oo u daartay mana diidin anigu waan sheegay maanta waan cadeeyay xadiis nabiyoon diiday ma jirto anigu waxaan aaminsanahay masaadirta quraanka inay shariicada islaamka ay tahay kitaabka quraanka iyo sunnada nabiga ah iyo ijmaaca iyo qiyaaska iyo istihsaanka iyo masaalix mursalada inay kamid yihiin marka xadiiska nabigana uu yahay masdarka labaad ee shariicada islaamka oo tashriica keenaya xadiiska saxiix aan yihiin xadiis aan aaminsanahay oo aan gorgortan iyo murantoona iga jirin laakiin waxa isku qabsanay waxay ahayd fasirka xadiiska laga bixinayo oo la leeyahay hablaha waxa tihiin diintiina aqligiina nuqsaan ku jirta kaasoo dadka badan oo ama culimo ka tirsan ama dad kale ka tirsan ay u isticmaalayaan si ay ku takrifalayaan kuna diidayaan xuquuqda gabdhaha ay leeyihiin marka waxa la isku hayo waa fasirkana culimo badan ku kala duwan kuwa aniga u aragti ah ama aan ku aragti ahay kuwa iga aragti duwan kuwa si qalada u haysta marka dooda fasiraada waa mid aan isku hayno iyo xadiis kale oo badan inay jiraan oo gabdhaha xuquuqdooda hoos loogu dhigayo oo kulligood wada faalsa ah oo mawduuca laakiin xadiiska inuu mar shaki ma gelin iigamana jiro sunnada nabigana madaxa ay saaran tahay marka dadkaas ila diriraya siyaasadda isku hayna iyo kuwii soo adeegsadana culimo usulda hore aan ugu bixiyay oo mishaarka dawladda ka qaato hoteelada u degan oo dawladda xaq iyo baadil waxay keentay ku difaaca iyo dawladdii oo u gashay argagixisadii oo niman argagixisaha oo dadka wadankan laayay oo dhameeyay oo xasuuqay oo qofka dadka mujtamacan gaalaysiiyay oo hargahay saamaha ku laayay oo sabab isgooskeedu ku laayay la socoto oo shaamow ahayd shalay darad wax 10 sano ay jirsatay ku laayay macallimiintii iyo waalidiintii ardaydii kuwaasna dagaal ayay ugu soo qaadeen marka waxaan u jeedaa dagaal saddex geesood ah oo dawladdii iyo argagixisadii iyo culimadii dawladda ku jiray beerholkeeda ama mishaarkii qaatay ay ugu soo qaadeen laakiin culimo badan oo la soo hadashana waa jiraan inaan ictiraafo waay i weydiiyay su'aalaha aan uga jawaabay waxaan ula jeedo ka bacdi arrintaas ka gaabsaday iyo kuwo badan oo ka gaabsaday haddeertan aan ugu degdegin cadeyntan haddaan bixiyeen dabcan wax kale u dhiman oo marsiyo ah ma jirto ninkii cadeynta